maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Raagaceele ayaa waxa ay kormeero kala duwan ku soo mareen deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Raagaceele iyo Cadale kuwa oo kala ahaa Boosmuluq, Geefo, Ceel Xarar, Bulsho, Ceel Muluq, Cadowul iyo xaafado ka tirsan degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona dhammaan tuulooyinka la kormeeray ee ka jirto xaalado nolol xumo iyo adeegyadii bulshada oo aan ka jirin dhammaan tuulooyinkaasi haba ugu badnaatee biyo yari baahsan oo ka jirta guud ahaan tuulooyinkaasi الملق ما ليرا waxaa ka jira dhibaato biilaana ka jirto nolosha sida waxa waay nolosha waxa u wareeyaa biyo dadka diin biyo haysan meesha biyo aan jirin nool ma jirto dadkan wuxuu leeyahay dawlad dhexe wuxuu leeyahay dawlad goboleed uu leeyahay waxaa jira hay'adaha samafal qaramada midoobay aan ka jaamacad carabta jiro waxaan u sheegaynaa caalasha ku yaala saddex ceel Bulsho Sheekh iyo Ceel Muluq iyo Ceel Xarar inuu haleesan yihiin dadka deegaankan jooga xataa way saqaad meelaan biyo caba xataa wallahi hay'adaha samafalka waxaan u sheegaynaa oo ku howlan caalasha inay sameeyaan oo dayactiraan in caalashan si dhaqsi loogu soo gaarsiiyo dadkan waxaan kaloo sheegaa meelaan ma laha waxbarasho ma laha caafimaadna ma laha waxaan rabaa meeshaan maamulka jiro dawladda gobolada Hirshabeelle jirto waxaan rabaa in la helo MCH nolosha tuulo kasta laga helo MCH in la helo waxaan rabaa in la helo waxbarasho in la helo ceel biyo nadiif in la helo rabaa anagoo dadkan degmadan Raagaceele ku nool iyo nawaaxigiisa dhibaatooyin fara badan jira dhibaatooyinkaas waxa waaye waa oon tubo wax la yiraahdo ayaa lagu cabaa meeshan meel la yiraahdo hor magaalada laga soo jiidaa oo hadda maanta markaad halka ka tagta aadan xataa awada aadan u hoyo karin tubo laga soo jiidaa inta lagu cabaa oo ganacsiga tan labaad isbitaal anaga ma haysano naagaha masaakiinta ee uureyda ayagoo ma taqaanaa gacan ka soo jeeda inta laga la kudaa warshiiq iyo inta ka sugaysay bashaqle dhulkaanay ku leedaan tiin walay ka badbaadana waa iska tagtaa idoo dhibaataysan marka waxaan ka codsanaynaa waxa soo dhan dhibaatadaas waa isbitaal waa biyo la'aan inay naga caawiso dawladda Hirshabeelle waxaa laga yaabaa intaysan gaarin warshiiq inay isku wayna dhacdo waxaa laga yaabaa ayadoo dhinac ay ka soo jeedo inay dhibaan wato waxaasoo dhanna waa wax la weydiinayo mas'uuliyadda ugu sarayso cidda inay wax ka qabtana innagana waxaan leenahay dhibaatadan soo sheegaynaa dhibaatadii aan sheegaynaa waana codsanaynaa in laga qabto guud ahaan waxaan rabaa inaan waan u jeednaa maanta waxaan booqasho ku nimid degmada Raagaceele annagoo maalmahan oo dhan joognay deegaanada bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhibaatooyin ka jiray olaada ka jiray dartood aan u nimid ayaan waxaan go'aansanay in aan baahiyada deegaanada iyo degmooyinka ka jira aan bal kormeer ku sameeyno si aan u ogaano xaaladaha dhabta ah sadarkaysiin oo jeedaan hadda waxay ka shaqeeyaan aalkii isku mitir ahaan la sheego 100 kilomitir waa ka badan yahay inta loo saaro maantana 100 kilomitir aalkii looga soo arooray inuu dansan yahay dadka saan u jiidaan waa u jeedaan marka waxaan codsanaynaa dadka wax gargaaro amba dawladda ha naqato amba ummadda sadaqada baxsata ha naqato amba jaaliyadda u dhalata dalka ha naqato inay si degdeg ah wax ugu soo gaaraan annagana ka gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa in annaga si degdeg ah باقينا هو سو قاعد دونا ماشان إن شاء الله. إسماعيل عبد الله سبيه يونيفرسال تي في دقمة الراجع قبل كشبه لها ده